السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا قيمها مدن وإذا سلام يا مقال كان وحنورن كرنا إن هو ينكو كسرعة لكن أبياشنا وقصودريا سببته إن سقوا ويسكجا بهاي إنه إسكنستو إن سقلفتي سو حلو بهاي إن كالنتي سدينه إنه سو بوحيو ووحو قبان كريو قبطه إن دونتا ولو دساري سما marka kulli waa loo baahan yahay in labada dhinacba aynu dhiga hadlii nin walba uu furo oo wuxuu qaban karayo dadaal la iman karayo la yimaado marka muuqaalkani maanta wuxuu ku saabsan yahay qof kasta lama oran karo laakiin way jirtaa dad hawsha ay qabanayaan halka iyo weekendiga u riixa maanta matalan in arimihii uu ku talagalay inuu maanta qabto hadduu dhameeyo isagoo waqti haysta wax yar oo kala in yar 30 mirir ama saacad kuma biirinayo hawshii oo isma laha hawshii biri ku sugaysa maanta iska qabo amba hawshan aad weekendiga u riixayso maanta iska qabo in dad aan suuranaynin way jiraan oo wax walba oo sameynayaan weekendiga u riixa weekendiguna walaalayaal way kala duwan yihiin wadanadu dad baa weekendigooda u bilaabma khamiista gelinka dambe ama habeenka iyo dharaarta jimcaha oo dhan in dad waxa weeyi waa jimcaha iyo sabtida in wadanada qaar waxa weeyi jimcaha iyo sabtida wadanada qaar waxa weeyaan sabtiyo axad qof kasta meeshuu joogay ku xirantahay marka anigu waxaan ka waday in topican aan soo qaatay hawsha aad qaban lahayd maanta aad qaban kari lahayd berina ha u riixin weekendigan ha u riixin waxa weeyaan maanta wixii aad ku dari karayso hawl ku sugayso maanta qabso si labada maalmood waxaan aad ururinayso maalin walba aad ururinayso labada maalmood aad nasan kari lahayd maxaydaad labada maalmood aad gelin kari lahayd naftaada in awlaadaada maxaydaayay maskaxdaada in jirkaaga waxa soo dhan waxa lagu qaban lahayd waxa weeyaan hawla ku sugaya dad badani dharka yare ma daragtay hadii aad maanta shanta soo waxdaad oo iska daalan dhowr saacadaad yar nasato habeenimada daaradii oo triigiyo ku shidan waad iska yar meeran kartaa wixii dhowrkii arimoode ka iruska hoobay laba calal haduu yahay ku yar tuur biyaha iska waro waxa weeyaan wax yar ay ka uska gooba hore uga yar u nadiifso wixii qolkaaga yar maalin kasta waad iska yar tiirtiirin kartaa weekendiga hala sugin weekendiga labada maalmood insha Allah wax weeyaan maalina naftaada gali naso waxa weey hurdada ama khadada iska yar dheerayso maalinta iska naso eheladii qaraabadii waad soo salaami kartaa adigaaga laftigaaga waxbaad soo baran kartaa quraankii amba casharo kale waad soo qaadan kartaa in adigaaga naftaada waqti waad la qaadan kartaa maalinta ku xigta weekendiga waa maalin hadaad doonto aad waqti gelina ciyaalkaaga amba reerkaaga family ahaan aad picnic soo sameynaysiin oo iska yar baxaysan oo hawada qaadanaysiin yani labada maalmood wuxuu ka caawin karaa labada maalmood wax badan buu ka caawin karaa oo way kamid yihiin insha Allah in aad naftaadana wax u kordhisato familkaaga time geliso in maxaydaayay aad waxyaalihii aad jeclaan lahayd inaad energy ku qaadato aad kaga bixi karto maamaha soo socda maxaa ku suuro gelin kara arimaha waxa ku suuro gelin kara in hawsha guriga ka dhaxdhacaysa aad kala qaybiso maanta ciyaal baad leedahay wiil gabdhaba gabdhuhuna dirine inamadana waxa weeyaan inaad responsibilizayso labada dhinacba waxa weeyaan shaqada qof walba uu kala qaybiyo maaha waxad ayagii wax ku yeelayso ihsaan aad u sameynayso asxaan baad u sameysay waa diyaarinaysaa waxa dhici karta wiilkaagu baritoole inuu tacliin wadan kale u tagi doono ama wadan kale u dhoofi doono marka waxyaalaha yar yar ee u dirayso waxay naftooda u qabsanayaan weeyaan maaha wax adiga okay waa lagu yar caawinayaa wad yar nasanaysaa laakiin ayaga wax u taraysaa markaad wax u daraysana inuu noqon wax dhabarkii ka jabinaya ciyaalkii ama dhalinyartii waayo ayaga way iskuul iyo qalin iyo wax badan baa sugaya wax yar oo fudud oo adigina waqti ku siinaya aad hawl kale ku qabato ayagina xiisa gelinaya because waxan waa waxay naftooda u qabsanayaan of course waad ku hornaysaa ilmahaagii adiga naftaada waxaan u baranaya in hawsha u fudud ayagana xiisa siiyo wax tiraada xiisa geli ilmihii waad ku tiraada waxaan adigu wax ku taraya in marka uu qabsanayo in shucuurtaas galaysa calaamid buu sameyn because isaga hadda wax ku qabsan doona adigina waxa weeyaan uu ku farax gelinayaa oo ajar buu ka shaqaysanay waalid baad u tahay in hawshina kuma badino
dee hore wixii uga soo baxayayo hawlihiisu hadhow qabsanaya. Marka hawsha yar kala qaybiyo yara responsibility xaafada, taasi waxay kuu fududaynaysaa time-ka inaad adiguna aad wax kale aad geliso gurigii kaga qaban karto. Ilmahaaga markaad wax u sheegayso isku si ugu sheeg, inantuun hadalka ha ku celcelin. Markaad awlaadda wax u sheegayso isku si ugu sheeg. Gabadhu hadday 6 soo galayso, wiilkuna waa inuu 6 soo hoydo, because ilmahaaga waa inuu fahmi karo inta uu dibadda ku maqan yahay saaqda dhexe waxa weeyaan dad kale wax ku soo baraya. Dadku personality badan bay leeyihiin, isku mid maaha. Markay sodohda amba sodoga gurigaagu joogo sibaad u dhaqantaa, markuu qof dariskaaga ku yimaado sibaad u dhaqantaa, markaad xaaskaaga amba odagaaga aad hor joogto sibaad u dhaqantaa, markaad awlaadaadu ku hor joogaan sibaad u dhaqantaa, markaad dibadda aad marayso isaga laftigiisa sibaad u dhaqantaa. Marka dadku personality badan bay leeyihiin. waxa weeyaan ilmahaagu markuu kula joogo waa kuu dahab, laakiin markuu albaabka ka baxo ma ogaan kartid siduu u dhaqmayo. Ilmahaaga kaa maqan maanta dhan waxa dhici karta waxyaalaha wanaagsan aad bartay in laga soo masaxayo wax kale lagu soo shubayo, dad kale wax ku bari kara. waxa dhici karta inuu ku marjeenayo, laakiin waxa dhici karta inuu noqon karo qof kale yeelaya. Marka ilmaha inta guriga ku joogto inamo iyo hablaba isku si ula macaamil. maxaa ka haray walwalba ka haray marka walwalba ka haray taasina time-ka ayaad ku kaydsan kartaa, caafimaadka lagu ilaashadaa, in waxa weeyaan reerkii baad ku protect garaysanaysaa. Gurigaagu maalin kasta diyaar uu ku ahaan karaa, waa hawshii oo maalin kaste aad qabanayso, hadba wax yarood qabanayso. Guriga maalin kasta hadaad uu nadiif ku yahay oo xataa adoo shalay fiiqay haddana aad mafiiqa yaro mariso, wixii xalay ku yar daadaatay subaxdii dhaskii yaraa wixii baad ka hagaajinaysaa. taasi waxay ku rusqaynaysaa, ku fududaynaysaa haddii lagu yiraahdo in qof baa kuu soo wareegay oo ku imanaya amba qof qaraabi uu soo socdo, aqalkiyo clean ayuu imanaya. isma wareerinaysid, ma kala yaacaysid, dhiikar isku maridaysid, ma degdegaysid. anytime albaabka lagu soo qaraaco aqalkaagu waa aqal nadiif ah, waa aqal udgoon, waa aqal waxa weeyaan diyaara. muxuu diyaar ku noqday? maalin kasta oo soo toosto wax yar baad ka dhex qabanaysaa oo meeshu nadiif ay ku tahay. amba weekend-ga lagu yimaado amba maantada lagu yimaado, maanta qofkii ku yimaada gurigaaga nadiif u imanaya because waad ka shaqaysay shalay toole, shalay baad wax yar qabatay, intii aad qabanaysaa in yar oo kale ku dartay. cuntada laftigeega ayadoona waxa weeyaan qof walba walaalayaal kharash baa ku socda, in dadku is xisaabinayaan in yar oo ayaga ku filan u bay kariyaan. haddana inta yar aad karinayso insha Allah Ilaahay baa kuu barakeen. dad in yar raaciso, dad 2 koob bariis kariso, nus yar raaciyaan maxabad, waxa dhici karta inuu qof heli ku yimaado. maanta waad aragteen dadka qaarkood way isku soo telefoonayaan oo kugu soo sacdaabo koornaya, laakiin wadankeena dadku way ku imanayaan anytime. albaabkaagu inuu qof walba u furnaan karo, waa ehelkaaga, waa qaraabadaadii, ajar baa kugu jira. waxa dhici kartaba in ehel baa inay noqon karto miskiin albaabka kugu qaraacay oo koornaya cuntaysi amba qof safar u socda. marka mar walba waxa yareed sameynayso in yar raaci. taasi waxay ku fududaynaysaa inaanad kolba dhinac u yaacin, inaanad stress isku ridinood kala caymadin, oo qofkii mar kasta ku yimaada aad u heli karto waxaad soo hordhigto. hadaad maxayday cake sameynayso kale waxa weeyaan 4 qof hadaad tihiin 4taana ku xisaabtamin, in yar raaci hadduu qof ku yimaado saad u soo hordhigi karto. hadday wax ka haraana waad digano bari toolaabad iska cuni, ama waxa weeyaan intaad bacyar ku rido ayaad sadaqad ula bixi kartaa markaad suuqa ku sii socoto. marka taasina waxay kuu fududaynaysaa insha Allah inaad weekend-ga aad hesho time, naftaadii time u hesho labada maalmood. maalina adigu naftaada geliso, maalina aad reerkaaga geliso, aad soo heshaan xaajidii ciyaalkii. hadduu waqtigu ku saamaxayo insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan muuqaalkan raaciyo hooyo walba, aabbo walba, qof walba guri leh siduu jecel yahay doonayo reerkiisa u maamulan karaa, siduu doonayo wax u qabansan karaa, siduu doonayo reerkiisa u maamulan karaa. halkan waxa weeyaan tips yar oo madaragtay ku siinayo un fikrado sida alliya si aad jeceshahay ayaad wax u qabsan kartaa insha Allah. wax qasabi ma jiro. haddii ay ku anfacdo ood ku dhaqaaqdo tamaam, haddii
isleedahay way adag tahay sidani laakiin fikrado kale ay ku siin karayaan iyaduna waxa weeyaan way fiican tahay haddii ayna ku anficino dhib ma lahan kulley waxa weeye qof walba siduu happy ku yahay ayaa muhiim inuu ku socdo marka walaalayaal intan waa tips yaroon waxay tarto insha Allah alxamdulillah in marka labada maalmood waad ka faa'iideysan kartaa inaad naftaadina nasiso oo wax kasta aanad loo suginuun labada weekendiga ee nasanayso because labada cishaad nasanayso haddii hawsha gurigu ad wixii awiiga dhan aad ururisaad qabato wiiga bilaabmaya way adkaanaysaa inaad ka baxdo insha Allah in waxaan ku rajeeyay nasasho wanaagsan iyo inaad ka faa'iideysato familkaaga oo time fiican aad la qaadato insha Allah